kusoo dhawow video cusub haddaad channelkayga ku cusub tahay ha ilaawin inaad subscribe saarto videogana aad like saarto aad baad u mahadsan tahay videoga maanta waxaan uga hadli rabaa taariikh nololeedka toorihii caanka ahaa Irfan Khan oo maanta ku geeriyooday dalkaasi Hindiya taariikhduna ay tahay 29 bishii Afraad 2020 magaciisa saxda waa Sahab Zaid Irfan Ali Khan oo loo yaqaan Irfan Khan waxa uu ku dhashay gobolka Jaipur ee dalkaasi Hindiya taariikhdu markay ahayd 7 bishii koobaad 1967 waxa uu ka dhashay reer muslim ah oo loo yaqaan Patan hooyadiis waxaa la oran jiray Saeeda Begum Khan abiisna waxaa la oran jiray Yasin Ali Khan reerkaasi waxay iska ahaayeen danyar waxayna lahaayeen ganacsi aad u yar Irfan Khan waxa uu jeclaa cricketka waxa uu go'aansaday inuu ka qayb galo tartan cricket ah oo lagu soo xulan jiray ciyaaryahanada cricketka ee dalkaasi Hindiya balse nasiib xumo waa ay u suurtageli weyday maadaama uu safri waayay sabab la xiriira kharash oo uu waayay kadib waxa uu go'aansaday inuu soo galo Bollywoodka oo uu bilaabo jilliin waxa uu galay iskuul lagu baran jiray jilliinka kaasoo loo yaqaanay National School of Drama oo ku yaalay magaalada New Delhi ee dalkaasi Hindiya Irfan Khan waxa uu suurta gashay inuu shantii Irfan Khan waxa uu guursaday Sutapa Sitkar oo ay ka wada qalin jabiyeen iskuulkii uu ka baran jiray jilaanimada waxa ayna u dhashay 2 wiil nasiib xumo bishii saddexaad 2018 Irfan Khan wuxuu bartiisa Twitter-ka ku sheegay waxaa tacsidiisa ka qayb qaatay dad aad u badan oo Hindi iyo cadaan ba isku jiraan waxaana ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hindiya Narendra Modi oo bartiisa Twitter-ka ugu tacsiyay Irfan Khan iyo reerkiisa una ku tilmaamay shakhsi aad iyo aad magac ugu leh dalka Hindiya iyo daafaha caalamka oo idin waxa kale oo ka qayb qaatay tacsidaas Amitabh Bachchan oo Soomaalidu u yaqaanaan Cali Dheere oo asna bartiisa Twitter-ka ugu tacsiyay Irfan Khan waxa kale oo kamid ahaa dadkii u tacsiyay atooraha caanka ah Shah Rukh Khan oo bartiisa Instagram-ka ugu tacsiyay waxa kale oo kamid ah Salman Khan iyo Akshay Kumar iyo tirishada caanka ah ee Deepika Padukone maanta Hindiya iyo caalamka oo idin waxa uu waayay jilaa kamid ah jilayaashii ugu jilaa quruxda badnaa ee soo mara caalamka oo idin aad ayaad ugu mahadsantahay daawashadaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh